ميونخ كون سيداد بقول طبنكي waxaa ku guursaday dhaxal sugihii boqortooyada gobolkan Bayern ee markii dambana noqday boqorka ugu caansan gobolkan ee Ludwig koowaad. Dhaxal suga Ludwig waxaa loo doonay gabar iyaduna amiirad ahayd kana soo jeeday Saxon Hildburghausen si loo maamuuso arooskana. Boqorkii xilligaas ee Bayern Maximilian waxa uu martiqaad u sameeyay dhammaan reer Munchen iyo hareeraheeda inay arooska ka soo qayb galaan si weyn loogu dabaaldego. maamulka magaaladana waxay qaban qaabiyeen 17 Oktoobar 1810 tartan fardafuulka ah oo lagu qabanayay fagaaraha caanka ah ee loogu magac daray aroosadda kaasoo maanta loo yaqaan fagaaraha Theresienwiese. dadweynihii ka soo qayb galay tartankii fardafuulka ahaa ee lagu maamuusay arooska dhaxal sugaha boqortooyada gobolkan aad bay ugu riyaaqeen. sidaas darteedna isla sanadkii xigay waxaa lagu qabtay isla fagaarahaas dabaaldeg kale sidii si la mid ah ay dadkiina uga falceliyeen. waxaa sanad kasta la dhigay dabaaldega ilaa 1800 ee maamulka magaalada isla garteen qalinkana ku duugeen in feestada ay noqoto mid sanad la ah. sidaas ayayna ku soo bilaabatay Oktoobar feestada maanta 190 jirsatay. laakiin marba haddii ay feestadan soo bilaabatay 1800 maanta inay 215 jirsato ayay ahayd ee waa sidee. طبعاً waxaa jirtay sanado aan loo dabaaldegin feestada tusaale labadii dagaal ee adduunka ama xilligii koronaha 2020 iyo 2021 wax Oktoobar feesta ah kama dhicin magaaladan oo dunida dhan ayaaba taagtaag ku jirtay. dadka yaqaan Oktoobar feestada maanta ee magaaladan degan waxay dhihi doonaan aaway tartankii fardafuulka. doorkii ayayna Soomaalida ku leedahay feestadan meeshana sidaan aniguba 3 sano ee magaaladan iigu horeysay aan aaminsanaa meel kaliya loo biir cabis tagaa. dhammaan su'aalahaas waxaan uga jawaabaynaa muuqaalka saddexaad oo ah kan ugu dambeeya ee taxanahan ee la socod wanaagsan.